kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan waa anigoo Zahabo iyo halkan aad socotaan waa maqalkii kusoo dhawaada muuqaalkan maanta haddaba inta muuqaalku gudagelin haddii ay tahay marka ku horeysay aad channelkan soo booqato fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid si aad ugu mid noqotid asxaabta halkan ugu xiran oo nala socoto mar walbo. haddaba Maria Abshir oo loo yaqaano boqorada Iskeelka ayaa waxaa la sheegayaa inay kasoo dhuumatay magaalada Hargeysa ayna si dhuumasho kusoo gashay magaalada Muqdisho. ومداس أيا أرين أرجح دلسي حتى هو سؤال إسويدين تمضن أيا واحد تايم حيت سوت ماريا أبشر ولا يقنا بقرة السلك أي وسط تجي سبيسة سلو مشغولي بقى أيضا حاس كذا وين يون فاميل كذا لمان اتكور ربط وين مقدسة سلو مشوك سقشة حتى هو أرين تاسي أيا وحكي ما تي في العلن آد حب بدن أنا كي ما تي دتك شعبك oo baraha bulshada kulli ay waxyaalo iska dhigeen inkastoo ay jiraan cilado soo dhacay boqorada Iskeelka in la furay iyo sababtan darteeda. haddaba muuqaalka boqorada Iskeelka in la furay in kale waxaan ku qaada dhigi doonaa muuqaalka xiga oo soo socda aan ku cadeyn doonaa cadeemo buuxdan aan keeni doonaa balse haddana muuqaalkan aan qaada dhigno. haddaba sababta boqorada Iskeelka Hargeysa uga soo dhuumatay waxaa ka soo hadlay fanaaniin aad u badan halka fanaanka caanka uu yahay Nimcaan Hilaac ugu horeeyay ayaa ka soo hadlay waxaana ku tilmaamay boqorada Iskeelka inay laba shay kaliya ugu soo tagi karto meeshaas inuu iskhilaaf jiro ama inay familkeed u xiistay arrin degdeg u xiistay. haddaba arrimaha soo dhacaya ayaa waxay jiraan waxaasi halka jir inaysan ahayn boqorada Iskeelka iyo haykalna iskhilaafayaan. si kastaba ha ahaatee saacadihi ugu dambeeyay ayaa waxaa qabsaday muuqaalkan boqorada Iskeelka iyo haykal qabsaday oo la sheegaya inay isfureen waliba sababta ay ugu soo dhuumatay Hargeysa ayadoona xaaskeeda u sheegin ama cid familkeedana u sheegin. si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa murugo iyo argagax dhalisay shacabka dhammaan isla gariireen. Maria Abshir oo loo yaqaano boqorada Iskeelka ayaa waxaa ogaan jirnay markay safar galayso inay xaaskeeda ay raaci jirtay balse haatan arrinta soo dhacaysa ayaa waxaas dhan wax ka duwan yihiin. galxid ayaa meeshaas Muqdisho tagtay halkaasi ay kula duduwaysay dad baraha bulshada caamka ee muuqaalo kala duwan ee kula duwaysay dadkaasoo baraha bulshada caamka ee khaasatan gaar ahaan internetka. haddaba su'aasha ismuranka dhaliya ayaa maxay tahay sababta keentay boqorada Iskeelka inay kasoo tagtay Hargeysa inay u tagtay si dhuumashaan magaalada Muqdisho. si kastaba ha ahaatee arrintaas ayaa khilaaf weyn dhalisay dadku waxay ku tuhumayaan arrintaasi inay isku khilaafeen boqorada Iskeelka iyo haykal. si kastaba ha ahaatee waxaa arrintaasi ka soo hadlay fanaanka Nimcaan Hilaac balse Nimcaan Hilaac wuxuu ka yiri arrintan baan la daawana marka hore. haddaba safarka ay sida dhuumashada ah kaga baxday magaalada Hargeysa kuna gashay magaalada Muqdisho ayaa saacadii ugu dambeeyay waxa ka hadlayay dad aad u tiro badan oo kala duwan kaasi oo gabi ahaanba ay horkacayaan fanaaniin iyo dad kale oo caanka ah baraha bulshada khaasatan dhanka internetka. fanaanka caanka ah Nimcaan Hilaac ayaa saacadii ugu dambeeyay ka hadlay isagoo oo arrimo badan soo bandhigay isla markaasina sheegay in laba arrimood ay noqon karto in gabi ahaanba boqorada Iskeelka iyo haykal ay iskhilaafeen iyo in boqorada Iskeelka ay familkeeda iyo gabi ahaanba dad badan oo waxa jeclaysatay in ay booqato halka dadka badankooduna ay arrinkaasi u qaateen mid khaldan. dadka qayb ka mid ah ama qaybta ugu yarna waxay tilmaameen in saacadihii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay boqorada Iskeelka ay aad ugu xiisaysanayd familkeeda siday u soo eegi lahayd isla markaasina u soo booqan lahayd oo jiray buholiyo dhanka familka isla markaasina ay hal mar go'aansatay in gabi ahaanba diyaaradda ay raacdo iyadoo xamaanteeda hore ka sidata waxaana garabkeeda ka muuqday xilliga safarkaasi ay ka baxaysay haykal oo kaliyaata iyadoo markaasina dadka badankoodu sheegeen in ay boqorada Iskeelka u tagtay arrimo kale oo iyada u khaasa. haddaba saacadii ugu dambeeyay waxay dadku aad ula yaabanaayeen safarka kadiska ee iyadoo aan la ogeyn boqorada Iskeelka ay ka baxday magaalada Hargeysa laguna war helay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho muuqaalana la soo duubtay dad aad u tiro badan oo caanka ah magaaladaasi Muqdisho isla markaasina kuwa ugu caansan ee isticmaala baraha bulshada khaasatan dhanka internetka. safarka boqorada Iskeelka ka tagtay magaalada Hargeysa kuna tagtay magaalada Muqdisho ayaa labada dhanba waxa uu ahaa mid ay dhuumatay isla markaasina aanay midna ogeysiinin magaalada Hargeysa inay ka baxayso cid kaliya tami ogeysiinin ilaa dadka baraha bulshada isticmaala ee ku sugan magaalada Hargeysa
iyada oo markaasina magaalada muqdishona sidaas si le ku gashay oo qof keliyaati aan ogeyn islamarkaasina aan la soo dhaweynin keliyaatana muuqaala kasoo duubtay guriga faamilkeedu degan yihiin iyada oo markaasina sikadiisa ugu tagtay qaybaha ugu cududa waaweyn ee faamilka ay kasoo jeedo ay horkacayso islaan ayow ah oo ah islaanta korsatay boqorada isteelka islamarkaasina intaasi soo leegeysiisay oo gebi ahaanba hab sabraysa ama kadis ah ay albaabka guriga uga gashay islamarkaasina ay qaadan waa ku noqotay xilliga ay boqorada isteelku albaabka uga gashay iyadoo lagu ogaa islamarkaasina lagu ogaa inay ku sugan tahay magaalada hargeysa balse hal mar oo keliya lagu arkay guriga faamilkeedu ka degan yihiin magaalada muqdisho faamilka dhammaantoodna ay ku noqotay arrin la yaab leh iyadoo halkaasina qaar ka mid ah abtiyaasheed ay u qaadan waayeen in ay timi magaalada muqdisho haddaba saacadii ugu dambeeyey waxaa lagu daba jiray dadkuna ay daba taagnaayeen sababta ku kaliftay boqorada isteelku inay labada safarba qariso islamarkaasina ay dhuumashana ay ku baxdo dhuumashana ay ku gasho magaalada muqdisho haddaba daawada adiga kan muuqaalka daawanaya maxaa kaaga iftiimay warbixintani maxaase kula tahay in boqorada isteelku safarkeeda u qarisay muxuu ku salaysan yahay safarkeedu ma laga yaabaa in gebi ahaanba khilaaf iyo waxyaabaha la halmaala ay uga tagtay magaalada hargeysa wixii fikiraya faalla aad hayso iyo wixii xoga aad ka ogtahay waxaad kusoo qori kartaa qaybta hoose ee fariimaha ama commentiga haddii aad u xoga ka ogtahayna hana hilmaamin inaad kusoo biirto channelkeena ood ugu horreyn like saarto muuqaalkan sidoo kalena aad subscribe saarto channelka gambaleelka yarkaana aad furato si aad uga mid noqoto kumanaanka kun ee qof ee daawado barnaamijyada aan halkan soo gelina kuna taxan channelkeena siina sheer garee muuqaalkan mahadsanid haddaba muuqaalka ku xiga waxaan ku qaada dhigi doonaa boqorada isteelka arrinta ka jirta in la furay mise in la furin muuqaalka waxaa idin tabinaya anigoo Zahboy intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo